رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبد البر oo aragtiyo fog ka hadlay hanaanka geedi socod dowladnimo ummadda Soomaaliyeed meel fahmi doontaa in hadallada uu ku hadlay iyo aragtiyaha fog ee dowladnimo ee ummadda Soomaaliyeed uu la damacsan yahay ummadda Soomaaliyeed ma mid wax ku qaadan doontaa oo la fahmi doontaa mise waa mid aan la fahmi doonin hadalladiisi waxa kamid ahaa sidan waxaan dooray waxa weeye haddaynan isbedelin in allaha laa yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bianfusihim halkaas ay ka bilaabataa development-ga development-ku wuxuu ka bilowdaa qofku inuu iska bedelo sidii uu rabo hadii kale de kulligan iskuulaha soo dhigan Soomaaliya haddaad hal wax samayso oo natiijo ku soo baxdo haddaad ومعتني رئيس الوزراء جمهورية فدرالك الصومالية مدن حمزة عبد البر aragtiyaha fog ee ka hadlayo iyo aragtiyaha diiniga sida la adeegay ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxaan leeyahay waad ku mahadsan tahay aragtidaada fog iyo hanaanka dawladnimo ee aad rabto inaad ummadda Soomaaliyeed ku hogaamiso ummadda Soomaaliyeed mid qaadata mise waa mid aan qaadanin waxa kale oo aan rabaa inaan soo qaato ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Itoobiya oo soo qaatay aragti inta badan qusaysa madaxda Afrika siiba madaxda Soomaalida hadday tahay waliba dadka jaahiliinta ay xilalka qabta inaad suud xirato متكبر نقطة قارية حق الدنبات فريسته الباب كلاجا فرع وحان سواق هذا دور فيديو رئيس الوزراء إثيوبيا باورك قاعد سقوطة شعب كان رح مريا مدحونا تركيا وقارية قاعد سقوطة شعب كان رح مريا مدحونا الراشية وقارية قاعد سقوطة شعب كان رح مريا كل بيدا سواء ربعنا الدولتيو وحيابها أو كهل رئيس الوزراء إثيوبيا وحي قصيان مدحض أفريقيا سيبا ولبا ذات كمدحض يسكو شيء جاهلين تا الصومالي ده إنه قف قاري أنتو قدال فريستو دينعيدو استابع كفريستا دعيدو استافع كفرديان قاري قال لقوة ضو وننكور هين البلشدة ويسكوين يسيه بلشدة قاري إن الباب كيس لقى فرمو إن الباب كيس كفرين بلشدة لقى إلى عليه يسقي بلشدي وشغيني إلا كلا إلى عليه هذا الذي سنو حكم العاصمة زنبلو أمورفوس زنبلو بالسلطان waxaa jira dad badan oo mas'uuliyiin sheeganaya haddana maran waxa aan leeyahay dad noqda suur bay xiran yihiin haddana way cabursan yihiin idinka ay idinka dhex buuxaan kuwaasi waxay ku fadhiistaan kursiga dambe ee gaadhiga oo albaabka ayaa laga furaa waa dhaqan aad u xun runtii waa wixii dumiyey dawladdii hore ruuxdoodu waa ay maran tahay laakiin suul ayay gashan yihiin albaabka gaadhiga ilaa laga furo ma soo degayaan iska ilaawa waxaasi oo dad noqda oo shaqaysta haddaba ra'iisul wasaaraha Itoobiya inta aanan guda gelin iyo kalibyadaas waxaan rabaa inaan ka hadlo aragtida ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Xamse Cabdi Barre isagoo maalin dhaweetana u hadlay si geesinimo leh muwaadinimo ku dheehan tahay heel walaal oo u heelanayo ummadda Islaamka ee lagu dulminayo Gaza madaxda Soomaaliyeed qayb kamid ah ra'iisul wasaaraha aragtiyadiisi uu ku dhaliilayay Yuhuuda si qaldan u qaatay si qaldan u fasiranayo Cabdiraxmaan Cabshukuur oo kale habeen hore waa waraysi laga qaaday waxa waraysigiisa kamid ahaa ra'iisul wasaaruhu sidan dhiiranaanta inuu hadla ma ahayn siyaasadda kuma jirto waxa waaye waa inuu qanciyo wadamada beesha caalamka ilaahay baa qancin uga baahan adoon kasta waa inuu ilaahay qanciyo laakiin ma aha inuu beel caalam iyo beel kaleba inuu qanciyo sida la adigeed wuxuu ra'iisul wasaaruhu qanciyay ilaahay wax qancin oo uga baahan yahay malax shakhsi kale oo adoona wuxuu kaloo ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya soo qaatay dalkan Soomaaliyeed waa dal nimco ay dul ceegaabto laakiin dadkii lahaa aynan fahansanin waxa ra'iisul wasaaruhu uu kaloo soo qaatay in loo baahan yahay isbedel ilaahay ma bedelo ilaa ay qoomku isbedelaan ama uu shakhsigu isbedelaba waana kelmad saxiixa ama waa kalaam saxiixa sidaa daraadeed ummadda Soomaaliyeed waxaa looga baahan yahay isbedel waxa kaloo isbedelka muhiimadda ah loo baahan yahay in lagu sameeyo madaxda ummadda Soomaaliyeed maanta hogaaminaysa ee ra'iisul wasaaruhu xukumo inuu sidii soo kale ay noqdaan in hantida qaranka loogu shaqeeyo ummadda Soomaaliyeed ummadda la tusiyo nimcadan dul ceegaagto sidii ay uga faa'iideysan lahayd waayo dalka Soomaaliyeed maanta waxa ka daaysan roobabkaasoo khasaare badan geystay xilliyada abaarta haddii biyihii faraha badnaa ee ilaahay nimcadiisa ahayd la kaydsan lahaa oo dhaamam loo samayn lahaa waxa weeyaan dhibaatadaas oo kale ma dhacdeen
waxa uu ra'iisul wasaaruhu kale uu ka hadlay in fariintii shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan Muqdisho uu ka jawaabay haday tahay wadooyinkii in la furayo dawladda hoose Muqdisho inuu uga baahan yahay jawaab cad oo ay maareyn u sameeyaan biyaha magaalada Muqdisho biriijyadii marshabiyeedyaashii biyuhu meeshii ay ka bixi lahaayeen ummadda Soomaaliyeedna looga baahan yahay isbedel in ay dalku aaminaan ay ogaadaan inay dalku iyaga leeyihiin wadooyinka qashinka aan lagu shubin dalka aan la baabi'in dalka aan la iska haleyn sida la aldigeed ummadda Soomaaliyeed waa inay la jaan qaadi karto hanaanka ra'iisul wasaaruhu uu la damacsan yahay madaxdiisu uu isagu xukuumana waa inay noqoto mid la jaan qaadi karto hanaanka uu ra'iisul wasaaraha iyo hindisaha uu ra'iisul wasaaruhu damacsan yahay waxaan marka rabaa inaan inta kaga gudbo aragtida fog ee ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ra'iisul wasaaraha Itoobiya wuxuu dhaleeceyn u soo jeediyay madaxda dalkiisa laakiin dhaleeceyntaasi waxay noqonaysaa mid ummadda Soomaaliyeed iyo madaxda Afrikaba inteeda badan qusaysa in qofku intuu suud iska xidho gaariga gadaashiisa dambe galo staff ay dhinacyada ka fariistaan darawal gaariga uu ku wado gaariga in laga furo mooyaan iska furin isaga iyo shacabkii uu xukuumay ama bulshadiisina la kala ilaaliyo waa nasiib darro inteeda leeg qofku waa qof maran xumaan ay ka buuxdo in suud inta la xidho waxa weeyaan suud waxba ma bedelo ee shakhsiyadda ayaa wax bedesha jaahilnimadu waxba ma bedesho ee aqoonta ayaa wax bedesha sida la aldigeed marka uu muwaadin aqoon leh dalkiisa iyo dadkiisana wax u bartay uu mas'uuliyadda hayo garanayo mas'uuliyadda uu hayo in ay tahay mid uu ugu adeegayo bulshaduna ay tahay mulkiilayaashii mas'uuliyaddan u dhiibtay berina ka qaadi kara ayuu isbedel imaan karaa waxaan rabaa inaan idin tusiyo ra'iisul wasaaraha Itoobiya oo gaari gacantiisa ku wata oo shacabka dhex maraya salaamayaan u mahad celinayaan u bogaadinayaan jiro joog waligaa jir ra'iisul wasaare jira tahay qaab barankii bulshada ku sameynaya uu dhex imaanaya isaga gaari gacantiisa ku wata dhanka kale waxa ka xiga protocolkiisa khaaska waa isaga iyo staffkiisi cid kale lama socoto gaariga isaga wata albaabku furaya gacantu ku salaamaya waa ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed wuxuu tusinayaa bulshada inuu yahay bulshada qof u shaqeynaya maalin maalmaha kamid ah waxa la weydiiyay ra'iisul wasaaraha ma kugu filan yahay mushaarka aad adigu qaadato uu ikaafinayaa buu yiri mushaarka aan qaato laakiin waa in dalka aan laga shaqeysan ee dadka loo shaqeeyaa madaxda Soomaaliyeedna waa in ay dareemaan aragtiyaha uu ka hadlay ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Itoobiya waa aragtiyo fog waxa kale oo aan rabaa inaan tusiyo ninkani waa Putin waa madaxweynaha Russia waa quwadaha adduunka ugu waaweyn buu kamid yahay wuxuu gaari ku wataa gacantiisa wuxuu dhex marayaa bulshada iskama weynaysiinayo wuxuu qiimeynayaa dalka uu isagu xukumo sida uu yahay qaabka ay bulshadu tahay waxa xataa markaas iyada uu qiimeynayaa amniga dalku sida uu yahay bulshadu in ay tahay mid ku naaloonaysa amniga dalka cidna laba socoto isaga gaariga gacantiisa ku wata xataa staff ma wato xataa protocol laba socdo waxa kale oo aan rabaa inaan tusiyo klibkan kale ee ku xiga waa madaxweynaha Russia Putin oo Maxamed Mursi madaxweynaha Masar gaari intuu albaabka laga furo Maxamed Mursi uu galo dhanka baasjeeriga Putin uu gaariga gacantiisa ku wadayo oo uu magaaladii Russia ee Moscow u dhex wareejinayo oo labadooda kaliya ay gaariga saaran yihiin Putin uu gaariga wado baasjeeriguna uu saaran yahay Maxamed Mursi madaxda marka ay sidaa u dhaqanto waxay bulshadu dareentaa kalsooni waxa dhacday madaxweynaha Russia waxa booqday madaxweynaha Turkiga Rajab Tayyip Erdogan madaxweynaha Russia oo magaaladiisa joogo shacabkii dhex socdo oo Moscow dhex socdo ayaa madaxweynaha Russia wuxuu iibsanayaa ice cream madaxweynaha Turkiga wuxuu kula kaftamayaa ma u baahan tahay markaasuu leeyahay ii gad anigana waxa laga iibsanayaa qof shacab ah madaxweynaha Russia lacagtii uu bixiyay qofkii ka iibinaya ice cream-ka wuxuu leeyahay madaxweyne baaqi intan aad u yeelatay waa kalsoonida shacabka inaan la iska weynaysiin in madaxweynaha aan gurigiisa waxba loogu geyn ee uu bulshada dareemi karo xaaladda ay ku sugan tahay hadday tahay maciishadu mid qaaliya waa inuu isagu iibsan karo wax loo soo iibiyo aan loo keenin waa inuu bulshada isaga dhex socon karo ninkan ama klibkan hadda arkaysaan waa madaxweynaha Turkiga Rajab Tayyip Erdogan waa halyeega muslimiinta isagoo gaari gacantiisa ku wata protocolkii baa la socda
istaafkii gadaal fadhiya xataa telefoon buu ka duubanayaa waa lala kaftamayaa madaxweynaha kalsooni buu muujinayaa wuxuu dhex socdaa magaaladiisii wuxuu dareemayaa amniga dalka isbeddelku sida uu yahay bulshadu ma tahay mid ku naaloonaysa amniga sida la adiga ummadda Soomaaliyeed madaxda xukunta ee maanta hogaamiye ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waa haliyay ummadda Soomaaliyeed ku faanayso aragtiyo fiican dhiibay shalay way la fahmi lahayd madaxweynaha ra'iisul wasaaraha kaftankiisa way garan lahayd laakiin maanta way ogaatay gundhiga ra'iisul wasaaraha kaftankiisu wuxuu ahaa madaxda caalamku waa mid kaftanta sida uu ra'iisul wasaaraha Soomaaliya uu kaftaminayay bulshada Soomaaliyeed ee hadallada sarbeebta ugu hadlayay madaxda caalamkuna ugu hadasha haday tahay ra'iisul wasaaraha Itoobiya haday tahay madaxweynaha Turkiga comedial brankiyo waxa jira bulshada ay inteeda badan aad ugu qosasho ama ay ku raaxaysato laakiin siyaasad xambaarsan istiraatiijiyad fog xambaarsan waxa rabaa barnaamijkeena inta ku soo gabagab